بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono xildhibaan Fuusi Yuusuf Xaaji Aadan ahna gudoomiyaha xisbiga NDP oo aan weydiin doono su'aalo dhowr ah oo ku tacalluqa waxyaabo waqtigan wadanka ka taagan miskoo kale tigsiga xisbiga iyo su'aalo kale oo muhiim ah oo aragno. waraysiga waxaa sidoo kale aan ku eegi doonaa arrimaha wada hadallada ee maamulka Soomaaliland iyo dawladda dhexe oo dhowrkii sano ugu dambeeyay marna waxaa soo maray haddana la sheegay in ay gaabis ku jiraan ama ayna socon. waraysiga waxaad ku soo dhawaataa maanta TV. ما سنتها وندوه su-aasha ugu horeysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay mudane ka tirsan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa tahay xukuumadda iyo xildhibaanada baarlamaanka labada gol inay isku milmeen baa la sheegaa taasna waxay sababtay in dhowr kooram uu baaqdo ma la qabtaa arrintaas maya ma qabo mid waa qabaa inay baaqdeen dhowr fadhi laakiin xukuumadda iyo baarlamaanku xaqiiqatan sharciyan horta waa inay kala maqan yihiin kala mid yihiin oo isxisaabiyaan isla xisaabtamaan hase yeeshee ilaa ku dhowaad dhowr iyo konton wasiir baa jira oo haddana parliamentarian ah taasaa culaysyo badan keenta marar badan aanay imanin iyagu ama haddii ay jirto wax dawladdu aanay maaragtay ku raalli ahayn doodo ay imanayaan aanay dawladdu rabto inay iska difaacdo wasiiradii dhan ay u dhacaan wareer bay ku keentaa iyo jahwareer marka always ama way maqnaadaan ama maaragtay sababo kale raadsadaan taasaa keenta culeysyada badan laakiin kelmadan waa isku milmeen taas iskuma milmin waa badan yihiin xildhibaanada aan wasiirada ahayn baa 4 goor ka badan kuwa wasiirada ah wataan kulamadii ugu dambeeyay ee baarlamaanka xildhibaanada qaar oo warbaahinta la hadlay sibay u dhaliileen xukuumadda oo kooramka waqtiga ay rabto in iyadu barnaamij ay wadato amba hindise iyadu xukuumadda ay wadato markii baarlamaanka la horgeynayo kooramka waa la soo camaray xildhibaanada baarlamaanka laakiin markii uu waraan wax lid ku ah xukuumadda baarlamaanka la horkeeno kooramka uu baaqda soo taas sabab kale ma noqon kartaa waa taan kaaga jawaabayo 55 kama badna 56 ama 57 xildhibaanada wasiirada ah laakiin baarlamaanku waa 257 200 iyo ugu yaraan 20 ama 25 ayaan ahayn wasiiro marka ma aha inaan taas xukuumadda u saaray dambiga kaligeed wasiiro badan baa maqnaad xildhibaano badan baa iska maqan boqol ku dhawaad baa xamar iska jooga oo imanin inta badan golaha marka ma aha midaan dawladda haddii xildhibaan sidaa yidhina isaga ra'yigiisa tan baarlamaanka marka taa kaga gudubno wada hadallo u dhexeeya dawladda dhexe iyo Soomaaliland oo dhowrkii sano ugu dambeeyay marba marxalad soo maraya hadda waxaa dawladda lagu dhaliilaa in wada hadalladii hadda ayna wajahin oo gaabad ku jiro turkiga ergey gaar ah u magacaabay sida la socono oo wada hadalladan baqaal Soomaaliland qudheeda dhowr jeer madaxweynuhu hadlay waxa uu turkiga iyo dawladda ku dhaliilay in arrinkan ay daacad ka ahayn marka sidee lagu heli karaa midnimo Soomaaliland lagu qanci karaa midnimada horta Soomaaliyeed waa quwadda iyo awoodda iyo jiridda Soomaaliyeed Somaliland waxay tirsatay wax badan dagaaladii dhacay 88 iyo dumistii Hargeysa ugu sii badan iyo dadkii badnaa ee la xasuuqay la laayay laakiin caalamka oo dhan waxaas way ka wada dhaceen waa wax laga wada hadli karo hadii loo horo waqti iyo maaragtay ay niyad dhabi timaado waa laga wada hadli karaa Soomaaliya sidoo kale tan iyo waqtiga 19 wixii ka dambeeyay burbur iyo xasuuq baa ku socda dil baa ku socda dabad iyo gudaba kaga imanaya dhibaatadu meel walba way taalaa anigu waxaan ila tahay gaabiska waxa keenay waxa halkan ka socda dhibaatada halkan ka socota oo hadii halkan ay sida Soomaaliland degan tahay oo si fiican ay maaragtay u hana qaado wada hadalku uu socon lahaa waa la dardar gelin lahaa haddana turkigu waa kuwa runta way u soo magacaabeen mudana gacantay ku hayeen laakiin anigu talada aan bari dhaweyd bixiyaa jira Twitterkayga ku qoray oo ahayd in odayaasha dhaqanka loo daayo Soomaali qabiil bay u noqotay 4.5 waxa la yiraahdaa la sharciyeeyay xitaa baarlamaankii lagu keenay macnaheedu waxa weeye wax kala la waayo oo wax kala furfura marka waxa weeye arrimaha qaarna waa siyaasad qaarna waa dhaqan mar hadda inaga dhaqankeena tahay in marka la wada hadlayo muddo la siiyo oo muddo dheer dadku wada hadlaan oo odayaashu wax korfeeyaan oo socawdaan oo kala iscanaantaan oo wixii yaala marka ay xal ka gaaraan marka mushkilad timaadana hadaan la rogrogin xal laga ma gaaro
halkana maalin baa la is siiyaa maalin la sii duulo iyo maalin la soo duulo iyo maalin la ismurmaayo marka tani ma aha wax ka dhabay ma jira ma soconayso dhaqankii ha loo celiyo meelaha Soomaaliya meesha ugu degan ee ugu banaan ee ugu nabadgelyada badan ha la geeyo dhowr bilood ha fadhiyaan ha kala bogtaan ha soo qoraan waxay kala sheeganayaan ha la isla eego siyaasiyiinta kadib ha loo gudbiyo anigu saasaan u arkaa wada hadallada gudoomiye xisbiga waa tahay xisbiga NDP sharci xafiiska ra-iisul wasaaraha yaallo oo dhowr hore asxaab badan ay ku qaadayaan jiro oo xafiiska ra-iisul wasaaraha soo gudbin oo baarlamaanka uuna imaanin haddii ay adkaato in sharcigaasi baarlamaanka aan la horkeenin xisbiyada caqabad ma ku noqon karaan of course caqabad way ku noqonaysaa mana ka yeelayno xukuumadda waa inay keento sharcigaas Soomaaliya waa burburtay inay hore socotay rabtaa uma baahnin sida iga muuqata sidaan maqlayna waa la soo wadaa oo waa dhamaaday sharcigaasi wasaaradda arrimaha gudaha way dhamaysay annaga waxaan sugaynaa xisaabta iyo baarlamaanka haddaan nahay in la keeno waana uga fadhinaa mana ka yeelayno in dib loo dhigo ama ay doorashadu dib u dhacdo ama doorashada la yiraahdo ma dhacayso ama sabab kasto kale doorasho waa inay dhacdo sharcigana waa in hadda la keeno taasaan ku talinayaa tan xisbiyadan si aan qaadayna xisbiyo dhowr ah diiwaanka shan wajah xisbiyadaasi ma adkaan doontaa inay soo baxaan ama ay noqdaan kuwa markaasi banaanka yimaado aba shuruudaha degsan ka soo gudbi kara xisbiyada imika jira ee la diiwaan galiyay waa 43 aniga waxay ila tahay inay isku beerbeeri doonaan waxay ila tahay inay wax 10 ka yar soo hari doonaan aniga sida ila tahay intaasina waa tartami kartaa way shuruudahana way ka gudbi karaan sababtoo ah shuruuduhu ma aha shuruudo adag waa shuruudo caadi ah oo caalamka un laga soo magaranaysa laga soo bartay ama laga soo qaatay ara wax adag ma noqonayso 10,000 oo qof oo cod waa caadi xamar bay 3 milyan joogtaa maxay ahayd xafiis la kareyso iyo xafiisyo gobolada 9 gobol oo in laga furo xafiisyo iyo in fiiga la bixiyo wax adag ma aha waa wax aad u sahlan waana gudbi doonaan waana la tartami doonaan insha Allah waana dhici doontaa doorashadu